أنا شفت السود هذا سيتهين سيلي هاي حالة واسدة وحكفل لبدن أو نكون أحسن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنتم حايدين ولا ما أنتم حايدين ولا هبصوعة بلها صوماليات كده حجرو هرت هبصوعة واجد عالم كويدلو كده حجرا وحاول مد جنسين وكاس مدو يعدان يسحقان مدو أهان ولا فقوقه عجب أهان يوحس واسكجران هذه موضوع عسر ربنا أو ينفيسل إيكهل ليسي لو مالين هرتت إن أنت كفلان خينو دين الإسلام كوي حركة هذه أديكو فكرة هذا وأباهنا أنت برنامج كان كوجود جري السؤال يودي أنا برنامج ديارنا لكن هل أدي برنامج كان كهل ربطه هاي أبنا وقتها هاي أو دلائل قبر هذا مسين له بيلها الهاب صوعة دكاسو دونتان والله بين إني مشيجا سؤال بين كمشيجا واللي ويدي قف أنا في ملكي كم ده حتى يودي وأقول جوابي أنت أقول أحمد الله تعالى أنت برنامج كأنه قلت قلوا حكاوا عشان أنا سبسكرايب اللايك الشير كومنت بروح بدلنا على صح حريقه فكرة هذا أنا ما عرفته هل كان يقولوا بدك تواصلنا وصح حريقه أغياري موضوع أنا عند حق الله مركع كسر دواجا إلى داود الفيديو قانيتو عبد الله ومواطنة lagu dhibaateeyay ninka ay u dooratay inuu la wadaago nolosha bal nooga waran hanaay dhibaatooyinka qoyska ay ka soo gaara haybsooca horta anu gabadh saaqabanahay nin ma dhibaana waan dhaxay waxaan kaliya dadweynahan ka rabaa ma dhibaanka iyo isaaqa isku diin maanayaan kala diin may wataan waliba qoyskan ka dhashtay aabbahay ifkaan ugu jeclaa way maxarimay ilama hadlo ima rabo waxaan leeyahay dadweynaha aabbayna waan jeclaa ninkaygana waan rabaa se diinta labadan qof kala fogeysay dadweynaha la weydiiyo bal nooga waran dhibaatooyinka ka soo gaaray haybsooca iyo balka aabbaha kugu maxay way sitaan yasayaan ma dhibaan isaaqan isku mid baan u haystaa haye nooga farq ay kala duwanayaan bay kala sareeyaan laakiin ma garanayo waayo waa shakhsi Soomaaliya waa nin muslina oo shaadanay diinta Nabi Maxamed haystaa anigu xagga dhaleecaynta waxaan saarayaa faamigan ka dhashtay waayo dad nin jecel baan ku guulsaday ma dhibaan waxaana waan ogolaa waanan ku raacay shaqadana bay wisiye maanta ma ogolo marka ma ninkii adiga ku qabay baa ama aabaha dooro ama aniga maya aabahay baa igu leh amba aniga ay dooro amba ninka amba qoyska ku jirtay qoyska marka maxaa diiday halkeeseen videogan gabadhan waxaa qabo nin ma dhibaan ah waa gabar isaaqa nin ma dhibaanna way u dhaxday sidii ayada sheegayso wayna ku faraxsan tahay abeed wuu siiyey oo uu ku daray sharci asaasiye maantana wuxuu leeyahay ka soo tag oo ma aragtay ma rabo sababtoo ah aniga dadkii waa la kaftami lahaay dadkii aan dhexgeli lahaay bulshadii anigaaba la intakooraba bulshadii aniga intakoortay maanta dhibaatadaas way jirtaa maanta dhibaatadaasayto waliba mid xoogan waxay isdheen dhalinyaraan ahay qabiil ma garanayno aniga dhalinyara ahay qabiil ma garanayno saamanihin kan manihin waa balaayo waxaas la aqrin jiray waa la iskala tagay waxaas abuu maanta nina isqabsanaysiin laba kelma isdhehaysiin wuu soo fadhiisanaa fikay maanta maxaa lagu caayaa dhalinyaraan ahay qabiil waa iska dhaafnay kanaan ahay laba kelma nin hadday isqabtaan wuxuu dhahaa gun baa tahay hooyada ama dhibaan ah kanaa tahay kuusaa taala lahaa dhibaato gabadhan aabaheed dhibaato haysato dadkii dhexgeli laayay wiilasha odayaashii la shaaxin laayay gabadhaada ma dhibaana qabaa la leeyahay waa la asaal anaa li heeb soo cahay leeyahay ka soo tag diinta islaamka maxay ka qabtaa marka diinta islaamka rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay idha ataakum man tardawna diinahu wa khuluquhu fazawwijuhu qof diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo ma aragtay tarbiyadiisa ma aragtay akhlaaqdiisa iyo diintiisa aad ku qanacsantiin hadduu idin imaado u guuriya haloo guuriyo gabadha hal la siiyo marka gabadha waxyaalaha lagu dooranaya nasabkeeda way ku jiraan laakiinse qof carabi ah ajami kama fadli badno حجة الوداع رسول صلى الله عليه وسلم وحده يا أيها الناس دذو إمقلا دذو وبراروجا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد لا ألا هو يا براروجا مركب
على هوي براروغا لا فضل لعربي على عجمي مد عرب مد او ما عرفت عجبت ما كفضل بدنو ما كفضل بدنو هاي مد مدونا مد عدان ما كفضل بدنو مد كعد اما جدودن اما كي كلتا مد كمدو كما فضل بدنو sidoo kale midka madowna midka gududan kama fadli badno waa idin gaarsiiyo ogaada kiina kan joogana kiina maqan ha gaarsiiyo marka wax kala fadli badan ma jirto gabadha haddii nin diintiisa iyo akhlaaqdiisa ku qanacdid oo ma aragtay oo raalli u noqotid oo ma aragtay biilan karo oo waxeeda ka soo bixi karo waa inaa u guurisaa marka su-aasha meesha taalaa waxay tahay haddii marka aabbaha uu ku dhaho ama hooyadaa ee ku dhahdo reerkaagii burburi oo arrintan darteed oga soo tag maxaa adiga kugu banaan gabadhan ila daawo mar kale aa u noqono muuqaalkeeda aan joogaan ku faraxsanahay allah i barakeeyo marka iga waran ku yimaada aabo hooyo ka waran xaaladeeda iyada waan la joogaa hooyo aabana marka hooyo aabo ma la hadashaa adigu hooyo ma la hadashay bal war laga yaabaa labada hooyo dhalow laakiin aaba may laba mid u taagayahay inuu aniga maxarimo ima warqad aan soo qaato idigan saa maqlayseen ama wada daawanayseen gabadhan aabaheed wuxuu dhahay aniga maxram aa kaa noqdo oo micnaha qof ajnabi aa kaa noqdo waaye ama ninkaas ka soo tago waraaqadaada soo qaada aniga ii soo go marka haddii sidaas ay ku qabsato ama sidaas lagu dhaho mawaalidka ayaa ku adeecaysaa oo arrintii waa samaynaysaa oo gurigaaga soo burburinaysaa mise gurigaaga haysanaysaa horta waxaa jiro حديث عمر بن الخطاب إن أو معرتي عبد الله وكعرض ذي قبر وقبي ورسول صلى الله عليه وسلم وده فر قبر سيدي وكفري لكن سي أرنت ماشي عن جرت وارد كا كم أرنت أنا كليته ولا كلا قاضي يا وارد كمركان محوك فرايا وأرني هي بصاعي من التكور روايتن ما أهن تن مدي عادي لما مد أهن gabadha ma aragtay odaga aabaha inuu dhibsada waxyaabo kale iyo barnaamijyo kale inay dhacaan oo waalidka ma aragtay oo aad iska caadi adiga laakiin tan waa heebsooc kama ogolaanaysid waalidka kama ogolaanaysid sababtoo ah reerkaas ayuu liidayaa nafsadiisu fadilaya qof bilaadan kama fadli badno ilaa bitaqwa cabsi ma ogiya alla ka cabsi aaluu kala fadli badan yahay wax kaloo lagu kala fadli badan yahay ma jirto inna akramakum cinda allahi atqaakum marka barnaamijka oo socdo boqorka gabooyo aan u malaynaa inuu yahay ninkan beesha gabooyo sida meesha uu laga sheegay wuxuu qabsaday culimada Soomaaliyeed wuxuu weydiiyey culimada waay maalin walba muxaadaro masaajidka khudbo barnaamijyadaas waa laga hadlaa maxay uga hadli waayeen fuquuqa ka dhex jira Soomaalida qof sheek ka hadlaa aan weligii Ilaahay ma arkin uu taagan yahay bal videogiisa ila daawo iyo waxa kale uu ka hadlayaa ku sii raaciye Soomaalida sidee ma aragtay ninkii Mareykanka lagu dilay inta u banaan baxeen kii Muqdisho ku aroostay gabadhana oo bees jireer weyna ahaana dab uu shideen bal ila daawo dib waa jirtaa laakiin dibta wali waxa ku soo hadhay sida gabadhan ay noo sheegayso aabaheed oo kale aabaheed xitaa hadduu ogolaan lahaa qoyska ay ka soo jeeday iyadoo aabaheed la dhashay ayaa nabadgelinay xitaa hadduu aabaheed siinayo uu qoyskeeda iyo ninteeda doonayo shaydaan dhalxeer kalaa jira oo nabadgelinayn soomaaliduna marmarka qaarkood waad la yaabisaa dhaqankooda ama diintooda beri dhoweyd waddanka Mareykanka nin George Floyd la yiraahdo oo madow ayaa nin cadaani u dilay wixii ugu badnaa ee mudaharada Soomaaliba ahaayeen nin jiriid weynaa oo xamar ku guursaday gabadh muslimna way gubeen halka Mareykanka oo ka mudaharaadayaan oo ay leeyihiin cusuriyad baa ka jirta nin madow oo waliba aan muslim ahayn oo nin cadi dilay ayay Soomaalidu mudaharaadisay
oo dhibaata ay ka soo gaadhay waay nin muqdisho ku guursaday gabadh muslimana noloshii bay ku gubeen waa muqdisho midda kale waxaan jeclaa inay culammadu fadhida halkan berberaawiyo oo marka arrin yar oo qoys ku saabsan ama dee bulsho weyntaa kala gala tifiyada la qaybiyo oo la yidhaha masaajidada wax kaleha kaga hadlina arrintaasun kaga hadla weli ma arag masaajid khudbad jimco laga jeedinayo weli muu arag ninkan siduu sheeganaya asiga barnaamij khudbad jimca laga jeedinaya ama muxaadaro sheekh uu qabanaya ama meel looga hadlaayo ama meel dadka looga baraarujinayo faquuqa ma araguu leeyahay aniga sababtii culimmada uga hadli waayeen aniga nafsadee markaa iska hadla xataa oo aan isku soo imaado xataa aniga ma arkin muxaadaro looga hadlaayo heebsooca muxaadaro sheekh uu soo qaban qaabiyo heebsooca soomaalida ka dhex jiro looga hadlaayo ma arkin adigu haddaa aragti waa nala wadaagi kartaa anigu ma arkin soomaalida waa dad la yaab leh waxay u dabaaldegayeen george markii oo lugta qoorta laga saaray oo maaragtay ay u dabaaldegayeen soomaali badan oo jinsiga madownimada ula dagaalamaya ninkaas dhaxdooda iyagoo muslim ah qof shahaadanayo iyagana way ismadibta koorayaan maxaa ani waxaa fahmi waayey ani nin dhalinyara ahay nin maaragtay horta waxyaabaha dhibaatooyinka ugu fara badan oo maaragtay jiro waxaa waaye waxyaabo la soo minguuriyo oo dhaqamo horeeto iyo dadkaas inkastoo dhaqankii hadda uu dhalinyaradii kusoo noqonayo dhalinyaradii dhaqankii dib ugu soo waalidkay waxay ku dhahayaan waalidiinteena saa samayn jirta kanaa la samayn jiray heebsoocan waa hor soo jiri jiray wixii dhalinyaraan anaga waa iska ilownay aniga hadda wiil gabooya saaxiib lahay kanaan la ahay saanaa ahay balse maalinta isqabataan waa ku ceeni daacadda markii laga hadlo maalinta isqabataan waa ku ceeni okay waxa lagu kala fadli badan yahay aniga ma garanaayo waxa la islaama ani ma garanaayo ani su'aasha li weydiina gabadhaada ma siin lahayd waa aniga nin diintiisa akhlaaqdiisa ku qanco hadduu ii imaado gabadha aan dhalay waa siinaya taasna ma aragtay kaban been sheegaayo naftana qofka iima taagno hadday iyada raali ku noqoto maanta iyada qofkay ku qanacsan tahay anigu waa la wadaagaya iyada waxaan leeyahay ma ku qanacsan tahay haa waa ku qanacsanahay aab macaan anaa keensade diyaar waaye wax la isdheeriya ma jirto marka ani waa fahmi waayo waxyaabaha la isdheeriyahay diinteenana waxyaaba fara badan inay ka hadasho culimmadeena marka waxaa laga codsanaya inay ka hadlaan barnaamijkan waxayna hore uga hadla barnaamijkii ka horreeyey oo maaragtay gabadhii sodohdeed isla markii way kasoo jawaabeen culimmada isla markii way kasoo jawaabeen oo barnaamijkan way ka hadleen sababta marka kan ay uga aamuseen aniga garan maayo adiga haddaa taqaan hoos mugula wadaag culimmada waa inay kasoo hadlaan heebsoocaan beelaha ka dhex jiro wallaahi billaahi tallaahi been kuu misheeya saddex magaco ilaahay waa nin baa subscribe ii saarnaa ninkii markuu subscribe ii saarnaa nin kalena subscribe iima saarneen maalintii uu caayay ninkan hooyadiis uu ku caayay yah wallaahi ilaahay iga sarreeya ninka subscribe-ka ka soo qaatay ninka kale siiyey ilaahayna markaatuu iga yahay aniga maanta cid aan ma aragtay uga heebeysanaayo ma jirto cid aan fadli uga raadinayna ma jirto liajli taas ilaahayna markaatuu intuu ka yahay liajli taas aa u sameeyey inaan ka soo qaatay aan ninkan ugu keenay isku qabiil lama nihin xataa geeleen isku meel uma daaqay dhahaan soomaali samaha xataa isku wax iskuma nihin isku meel meel iskama soo galno liajli illaahi dartiis aa u sameeyey iyo ninkaan ku takooraayo liajli hooyadiisa qabiilkaas haddii maanta aad tahay qabiilkaas ama ay ku dhasho hooyo qabiilkaas qof soomaali waxba kuma dheero soomaaliyaa tahay qof soomaali waxba kuma dheero fikirkooda fikir xun daciifnimo oo qaladii aaminsan yihiin qofka ugu fadli badan ilaahay agtiisana waa kan ugu taqwada badan soomaalina maanta waxays wada dheerta ma jirto aan idiin sheego kulli qabiiladaha laandheeraha sheeganayo yah annaga daaroodaan ahna annaga hawiyaan ahna dhahaayo kulli dhexdooda isxuquuqo hal isku takooraan adi laangaadaa tahay adi laansaanaa tahay iyagaa isdhaho soomaali wax dheer ma jirto marka soomaali wax dheer ma jirto waxaan rajaynayaa culimmada inay ka soo hadasho barnaamijkan ayna ka baraarujiyaan dadka intaan ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkaygii salaamullaahi calaykum idin ahaantiinba meel kastoo caalamka ka jooga